bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalayaal soo dhawaada halkan aan taaganahay maanta waa iskuulka nasiib agtiisa ama suuqa xoolaha wadada ka baxda ee iskuulka nasiib aado waxaan idan tusi rabaa guri boqortooyo oo iib ah yacni gurigan haddii intuu qof arko hanti u haysto oo gadan karo uu lacagta dib oola noqdo qofkaas inuu meel qurxan adduunkan ka dega maba rababa uu regaarisna u yahay ama dibadda joogo wax alla wixii shaqo aad shaqeynaysay kaala meel fiican ka deg lacagta ayada ah guri CCTV camera ku wada xiran tahay la shixnaday la qurxiyay la nadaamiyay la wanaajiyay waa ka guriga aan galno gudihiisa waa ka guriga waa hal dabaq guriga waa hoos iyo kor iyo meel kore oon idan geen doono halkan waxaa lagu talaalay geedo aad u qurux badan nalal ayaa derbiyada iyo kor kamerooyinka waa aragtiin labada dhinacba dhanka iyo dhanka kale way ku xiran tahay gudaha way u soo jeedaa afartiisa goono gurigan inta gees uu qabo waxaa la dhihi jiray caadi baad ugu qanci doontaa maasha allah gurigan lacagtiisa hadda idinma sheegi doono dadkii laa way ka cudur daarteen laakiin markaadna soo wacdo waanu kuu sheegi doonaa lambarka waa 0727913168 waa 0727913168 aniga ka baxay ee ruux isoo wici rabo halka waa lambarka xafiiska waa cabdisalaan ama maamulaha shirkadda waa cabdisalaan aniga waa 0726768022 bal qolka fadhiga aan ka bilowno waad arkayseen gelitaanka hore guriga ani hadalkayga hala soconin adiga indhahaada meel walba ha kuu qabtaan wax walbana adiga ka bogo macnaha waxaa laga yaabaa aniga inaan sheegin wixii adigana aad wax aad arki lahayd oo aniga aan sheegin inaad ishaada ay ku dhacdo oo laakiin dhegta un ay igala socoto marka indhahaada fur tileska hoose fiiri nalalka geesaha la geliya fiiri diningka waa kan xoogaa kamerada waan seexiyey hadday qolosha lacalla idanla yaryaraadaan waa kamerada jiifta ee ma aha maxaa la dhihi jiray qolka inuu yar yahay laakiin guriga waa guri qiyaas fiican waay albaabada ritaankaasa ku xiran albaabka bahasha ayr celinaysa u garaacmin albaabadana waa heavy gauge waa mahogany ama alwaaxa qaaliga ee culus waaye waxa loogu xira bahasha albaabka inuu albaabka kala jebinin markuu albaabka aad u culus ayaa bahasha lagu xiraa qolka fadhiga waa ina soo tusay bal kushiinka ama jikada aan imaano jikada waatan maasha allah nalka uu cawiri kamerada laakiin markii la zoom gareeyo ubaxya iyo waxbaa ku dhex sawiran waa nalal aad u qurux badan ka raalli ahaada halkaa farta iga gashay maxaa la dhihi jiray waad aragtiin jikada waa modern waa noocyada ugu dambeeyay dhagaxa dhaxda ee dadka isweydiin doono waa meeshii yacni wax ku diyaarsanaysay markaad diningka ama jikada ku jirto aad diningka iyo xagga kushiinka ama xagga fadhiga aad kamerada kaga qabatane quruxda ayuu qabaa waad aragtiin kamera ayaa ku xiran jikada cuntada lagu diyaarinayo waad iska eegaysaa ama haddii aad caruurta keli ka tagto waad la soconaysaa meel walba inuu jikada dab ka kacay iyo wax walbo waad arki kartaa halkan waa musqul markii fadhiga iyo meelahan la joogo ama jikada iyo waxan la joogo musqushii shaqaalaha ama iyo isticmaal lahaayeen musqul aad u qurux badan run ahaantii agabka ama alaabta la geliyey gurigan waa alaab maxaa la dhihi jiray quality leh alaab qaali waay qolkan waa qolka shaqaalaha waa qol aan aad weynin isaga waa qolka shaqaalaha jaranjarada loo raaco guriga qolka jiifka iyo qolosha kore waad aragtiin nalal baa ku jiraan aad baa loo qurxiyey maasha allah run ahaantii gurigan aniga galay derbiyadiisa waa aragtiin sida loo shixnaday gurigan markaan galay anigu waxaan is irinayahow lacag yaa ku siiya gurigan agadatid run ahaantii haddiiba ilaahay lacagtaa ku siiyey oo weliba hadda dollarka intuu qaali lahaa dadka dibadaha jiraan aad buu gurigan lacagtaas dhaqsay tuuri lahaayeen maxaa la dhihi jiray bal aan galno qolka koowaad waa ujeedan qolosha way fiican yihiin
gurigan markii qolka shaqaalaha lagu daro waa 4 qol laakiin qol waa kor waa 3 qol iyo fadhiga iyo jikada hal qol waanu galnay hadda halkana waa qol kale qolka kala yani kii wali idan ma geynin master bedroomka ama qolka dadka guriga la ay seexan lahaayeen boqortooyada wali idan ma geynin nalalka iyo faananka way ku xiran yihiin maxaa la dhihi jiray tileska sida loo sawiray iyo tileska noocu iyo quality-giisana waa qaali waa sababta iga keentay guriga suu weyn kali inaan muuqaalka 10 daqiiqo ka badan uu noqdo ama 10 daqiiqo uu ku dhawaado banaankiisa waa ka qolka marka master bedroomka banaankiisa waa ka wow waa ka master bedroomka yani haddii uu jacayl jiro oo uu nin ama gabar ee nafteeda jeceshahay oo qof uu kalsooni isku qabo guriga uu gadan lahaa waa kan run ahaantii waa adka hadalka xaqiiqadiisa waa haddii uu jiro qof isku kalsoon oo lacagtiisa iskaga hagar baxay hadduu jiro gurigan qofka gato qofka uu isku hagar baxay ma jiro qof guri aad ku martiqaadi lahayd dad ama guri adduunyo oo qof bini aadin edago oo gurigan maanta sida loo qurxiyay iyo agabka la geliyay guri ka qurxan ani intaan guri duubay wuu yar yahay guri ku dhawaanaya waa la arkay laakiin run ahaantii ma jiro haddii aad naftaada jeceshahay oo kalsooni aad isku qabto kaali gurigan soo deg lacagta waxba ma aha waa dhammaan way ku dhaafi laakiin waa guri yani maasha Allah aad waxaan kaloo idinka iloobay guriga marka haday banaankiisa ku qabanay kamerada waxa la haaqaya banaankiisa waxa la bilaabaya laami ayaa la saaraya sidoo ii sheegay ninka guriga dhistay wiil yar oo dhalinyaro ah baa gurigan dhistay maxaa la dhihi jiray umuuna dhisin maxaa la dhihi jiray beecshir ahaan buu u dhisay asaga markuu saan u qurxinay waxaan gelinaa arkeysiin wuxuu ugu talagalay real estate ahaan uu dhisaya uu bogaya guriga uu sii gadaa lacag badanna kaama raadinayo ha u maleen yani guri oo intuu qofki lahaa muxuu u degi waayay iyo ma aho guri waa guri beecshira loo dhisay gaarisna guriyo noocan dad dhisaan baryahan way ka bilowdeen ba ana hadda nii sheegaya showerka waxa ku xiran mounta baa la dhaho oo biyaha pressure u yeelayso anaha codka waan ka jaray muuqaalka originalka codka waan ka jaray laakiin dhawaaqa biyaha waad yaabaan ku dhashaa wadota way socota biyaha zaid biyaha xoog ileen jub bay dhahan muraayad qaali ah oo biyaha inta aan kusoo firdhinaynin oo qurux badan oo tinteed ahna wuu geliyay meeshaas macnaha waa guri western yani reer galbeedka ahaana loo dhisay gurigan marka runta ku sheego ruux gaaris jooga ahaan uma dhaqmaysid markaad malkan joogto adoo Yurub joogto amal baad u dhaqmaysaa ama Mareykan ninka odayga ana waka muuqaalkiisa xagga ka aragtiin wallahi beeni ma sheegay gurigan ma sha Allah ana hadda waan xiiqay xayisiin waa iga dhamaatay hay ugu xijinna gorgortanka hadana gurigaas barkadaas waa mid lama quuranay wiilkii gabadh is jecel ba inta abuur badan geliyaan mid ay dhig hadda ka hor dad badan ba ay soo wacay ku qoslay ay ma quuranayaan meeshaas waxa la yiri xoogaa intii abuur laga kiciyo waa swimming pool yar waa yaa saa ugu dabaalanaysin hadda rabtid 8 saac weynimo dabaal anaga maxaa naga galay guriga aad iska leh xilliga doonta ku dabaalan meeshaas marka gurigan meel aad ku caweysinto oo gaaris waayeen dambe waa kuleel iyo wali horta guriga waa dabaq oo meesha qolkan master bedroomka xagga hawadu jira hadana waad raaxaysan wallahi waad raaxaysan dabeesha day beedii AC na uu ku xirinaan hadda wali guriga shaqo ku socotay AC inuu ku xiri doono ninka ma hubo hadii kala aad iskaga xiran nin gurigan gata AC kuma xiran weynayo halkan waa halka odayga iyo gabadha ay ku caweysimi lahaayeen ama xitaa maalinimada waa hergeli kartaa maxay la qabow waay waa qoraxna kuma soo galayso waa meel qabow oo duhurka hata la harsan karo marka bal waa muraayada gurigan hata banaankiisa marka joogto meelo oo waa kan muuqaalaha iskaga duubto hadaa rabto ama isku fiiriso adi yaad arkaysaa banaanka dhanka u baxdo muraayad baa ku xiran banaanka kor hata marka u baxdo aad guriga soo galayso muraayad baa ku xiran waa hata muraayada meel walba muraayad baa ku xiran gurigan banaanadiis wadada marka si socoto waa isa si arki marka soo noqon waa is arki qolka marka gasho waa is arki marka bal kor aan baxna marka kor markaan ku leeyahay macnaha fitinta kore dhalada kore ee guriga aan u baxno meel marka waxa waay inta soo qof ay saxan karto habeenkii waa kaday marka si socoto hata banaanka u sii bixirto muraayad isku arkaysi waataas ada is daawanaysa waata meesha guriga meesha ugu koreyso waata hadaa rabto ninku wuxuu ii sheegay inaad sii dhisan karto meeshan qol baaba ka dhisan kartaa adaaba qol ka dhisan meeshan hadaa rabto laakiin qol maxaa ku filan guriga marka hoos ahaan u fiiris ma sha Allah
aad buu u qurux badan yahay wakaa laamiga meesha la maraysa in shay wadada suuq xoolaha ka soo baxda ee nasiib iskuulka nasiib aado iskoolka nasiib ee aniga aan ka bilaabay nursery hadda muuqaalkan dad oo aan iskoolka isla dhiganay inay arki doonaan baa laga yaabaa madam Jane 1996 meesha aan ka bilaabay nursery school aan ka bilawnay ayaa idan tusi rabaa halkan klaasyada idin ka qaban class 1 1996 meesha aan ka bilaabay idan tusi rabaa 1996 class 1 baan ahaani halkan iskuulkan oo cusub baa markaa noo dhisay waa ka meesha nursery aan ka bilawnay ninkii garan baa garan qolasha dhinac aan jiraan baan iskuul ka bilawnay waka stand 2 maxaa la dhihi jiray iyo maxaa la dhihi jiray 2 iyo 3 waa kuwa galaasyada geeska jiraan aan ka soo dhigtay meesha aan maray dhanka kale aan stand 8 ku bogay waxaan iskoolkaas imtixaanka galaaska 8aad ka sameeyay 2003 haddii rabto sanadkii xisaab aan waxba igama gelin iskoolkaas ayaan ka bogay dadka xaafadan degan dhan waan aqaani jiray iskoolkana deerkiisa aad buu u weynaa run ahaantii aad baa loo soo galay waan deeri jirnay dad baa soo galay la dhihi jiray macalinkaana kicin jiray iskoolka waan deeri jirnay wallahi aakhir inigaan ila weydiin dhulka iskuulka dhan waa soo gasheen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guriga waa ku kaas